Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadayda wadayaal kusoo dhawaada. Halkani waa Juqrowr Media. Dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa baryahan dambe waxa uu kala dhexeeyay khilaaf Axmed Madoobe, halkaasoo baryahan dambe ay isku mari lahaayeen arrimaha doorashooyinka. Isla markaana xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu qaaday tallaabooyin militari oo uu ku xayirayo Jubbaland iyo xuduudaheeda, sida cirka oo kale uu ka xayiray oo uu joojiyey diyaaradaha tegaya maamul goboleedka Jubbaland, halkaasoo uu xiray garoonka diyaaradaha oo uu yiri hawada waxba kama soo geli karaan, taasoo uu sababeynayay baryahan dambe Xamse Cabdi Barre oo isna in muddo ku dhex jiray oo khilaafka ka dhexeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo Axmed Madoobe xallin waaye, ayaa waxaa maanta ay ugu qaaday tallaabo xayiraada dhammaan hawada Jubbaland, taasoo ay sheegeen inaanay waxna ka soo degi karin waxna aanay geli karin. Sababaha ka dambeeya in garoonka la xayiro ayaa waxaa lagu sheegay in saraakiil 6 oo ka tirsan ciidamada xoogga halkaa lagu xidhay. Dhaqdhaqaaqyo badan oo dadku ay sameeyeen oo ay isku dayeen in lagu furo hawada ayaa fashilmay kadib markii ay dowladdu ku adkaysatay, maadaama saraakiishii kasoo degay garoonkaas dhammaantood la xirxiray oo ay Jubbaland xidhay in aanay sidaa awgeed aanay dowladdu fasax ahayn hawada Jubbaland, cidina aanay kasoo degi karin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa baryahan dambe socday doorashada ka socotay Jubbaland, taasoo Axmed Madoobena uu ku adkaystay, isla markaasna aanu cidna u joojinahayn, oo wadahadallo badan oo dhanka Kenya iyo ergooyin loo diray iyo beesha caalamka intuba ay ku fashilmeen. Ayaa maanta tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ayaa waxaa u badan tahay inay ka xidho cirka iyo badda iyo dhulka wixii suurtagalba ah. Saraakiil ayaa halkaa la geeyey iyo ciidamo federaalka ah, taasoo laga baqayo in halkaa gacan ka hadal yimaado. Hawaduna sidaas ayay ku xiran tahay oo aanay marnaba Jubbaland ugu suurtagelahayn, maadaama diyaaradihii qaadka sida ee Kenya ka iman jiray la joojiyey. Axmed Madoobe ayaa isaguna maanta waxa uu sameeyey doorashada baarlamaanka. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa markii afraad waxaa ku guuleystay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Cabdulaahi, kaas oo la sheegayo in ay Axmed Madoobe aad iyo aad isugu dhow yihiin oo ah gacanta midig ee Axmed Madoobe. Isla markaana maanta waxaa loo dhaariyey gudoomiyaha baarlamaanka, halka la filayo in doorashadii kale ee madaxtooyaduna ay iyaduna dhowdahay oo loo ballansan yahay muddo yar kadib 25-ka bisha. Waa sida jadwalka Jubbaland uu ku qorane. Isla markaana Axmed Madoobe uu markaas ku caanshubi doono doorashadan oo la sheegayo, maadaama Axmed Madoobe uu doortay gudoomiyaha baarlamaanka inay aad isugu dhow yihiin, inaanu Axmed Madoobe kusoo bixi doono doorashadan oo isagu isku caanshubi. Si kastaba ha noqotee, beesha caalamka ayaa waxay soo saartay warmurtiyeedkaas oo ay ku leedahay in ay kula hadlaysana dowladda federaalka, gaar ahaan Jubbaland, taasoo baryahan dambeba uu ka socday doorashooyinka tii doorasho dadban la oran jiray. Kadibna waxay yidhaahdeen waa inaad joojisaa, isla markaana aanad isku dayin inaad dhammaystirto hannaanka doorashada, isla markaana aad kusoo noqoto madasha wadatashiga qaran. Waa sida hadalka ay u dhigeen. Haddaba waxaynu eegi doonaa Axmed Madoobe talo ma aqbali doonaa in beesha caalamka warka ay soo jeedisay, mise sidii kal horeba sameeyey ayaa waxa weeyaan isku caanshubi doonaa. Xilligii farmaajo waxaynu ogeeyeen Axmed Madoobe uu saasoo kale ay dowladdii federaalka isugu dhaceen, isla markaana doorasho uu iskii u madax bannaan yahay uu qabsaday, taasoo ay dadka qaar ku macneeyeen isku caanshub, isla markaana farmaajo uu kaga guuleystay arrinkaas. Sidoo kale maantana waxaynu eegaynaa bal sida ay wax u dhacaan, maadaama baaq ay soo jeediyeen xubnaha beesha caalamka oo saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya, isla markaana Axmed Madoobe ugu baaqay inuu joojiyo doorashada uu wado ee doorashada dadban, aanu sii dhammaystirin nidaamka uu hadda uu wado, isla markaana uu iska soo xaadiriyo villa Soomaaliya iyo Muqdisho. Balan eegno waxa ay arrinku dambeeyo. Dhanka kale, madaxweynaha dhawaan loo doortay Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxaa casuumad u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, kaasoo la waqti ahaa madaxweyneyaal fara badan oo ilaa waxa weeyaan oo 6 madaxweyne oo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, Daahir Riyaale Kaahin,
axmed maxamed maxamuud siiraanyo, muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan oo hadda jooga. intaasoo madaxweyne ayuu la soo shaqeeyey, taasoo dadka qaar ay leeyihiin waa madaxweyne waqtigiisa aad u dheeriyay. kale cimriga ilaahay baa bixiya, laakiin intaasoo madaxweyne oo soo maray halkaa waxa weye ismaaciil ayuunbaa jooga ayaa la leeyahay. sidoo kale dowladda Itoobiya iyaduna waxay bixisay waxay ugu yeedhay casuumaad rasmi ah cabdiraxmaan ciro, taasoo labada casuumadood si u kala horeynayaan iyo sida waqti u kala siin doono aan la garanahayn. halka uu ismaaciil leeyahay igu soo horee Itoobiyana leedahay annaga nagu soo horey. Itoobiya ayaa waxaa la qiyaasaya inay kule tolo ay ka hadli doontaa arrimihii berihii dhexda ahaa muuse biixi heshiiskii midiroorteynta ahaa ee uu ku midiroorteeyey inuu ku bixiyo baddaasoo wax lagu bedelinaya aan la garanahayn, islamarkaana shacabkuna aanay loo sheegin. dee dhul ictiraaf lagu iibsaday len waxa weeyaan lama arage, taasoo dadka ay si weyn uga biyadiidsanaayeen. soomaaliyana ay aada uga hadashay, Itoobiya iyo soomaaliyana ay isugu dhaceen, halkaasoo damaca korneylka abiy axmed layidhahda uu ku doonayo inuu somalilan yidhaahdo bad isiiya oo ii saxeexa waxa weeyaan aan hawl yaraan helo. marka dee dhul hawl yaraan la bixiyo lama araga. ismaaciil laftiisu kule danayaal gaara ayuu ka leeyahay oo markuu u yeedhayo marka horena dee waa laba dowladood jaara, marka xigtana kolliba waxa weeye ninkii kasta ee kursigaa ku fadhiistaa waxa weeyaan wuu u yeedhaa, halkaasoo ay kolley dee nidaamku soo kala qaataan. si kastaba ha ahaatee ismaaciil margelle wuxuu ugu yeedhay casuumad rasmiya oo uu ugu yeedhay cabdiraxmaan ciro. balaneegno waxa ka soo baxa iyadana. waxaa maanta magaalada Guriceel lagu toogtay Sakariya Asad Faarax oo ah nin dhalinyaro ah, kaasoo bishii hore Oktoobar ku toogtay cabdulaahi maxamed faarax oo uu dilay. islamarkaana maanta waxaa dil qisaasa lagu furiyey wiilkaa dhalinyarada ah magaalada Guriceel. dowladda South Sudan ayaa iyadana waxaa ka dhex bilaabmay dagaalkaasoo ugu dhawaad qarxay, islamarkaana u dhexeeyay agaasimihii hore hay'adda sirdoonka ayaa lasoo xidhay oo khilaaf kala dhexeeya madaxweynaha. bal insha allah ilaahay ha ka qaboojiyo dagaalkaas, maadaama Soomaali badan aanti halkaa ka taalo. balanayno dagaalkaas iyo siduu u dhacay waxyaabaha laga soo duubayna. xilliga uu dagaalku dhacay taa xilli habeenimo aan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah, haddana Soomaali badan oo xaggaa joogtaan la xiriirnay waxay sheegayaan laba dhinacba ay rasaas isweydaarsanaya, islamarkaana xilligan ay dagaalku socdo. bal wixii ware kasoo cusboonaaday insha allah waan la soo socodsiin doonaa. Suudaan oo dagaal ka qarxay iyo ummadda Suudaan